محاضرة كساب سنيد تاريخ دي تاتارك قيب تيدي شنات إن شاء الله تعالى تاسون كفا إلي سنين وكفا إلي سنين إن محوها أن كعبر قاضنه وحيابه أمده هراء كي من أننا عبر قاض الشيء نوطة فخصوص القصص ورب الله سبحانه وتعالى أقصى قصة سيمركا مارتوحة لغاية بين يكون عبر قاطان دتكيه فليتفضل الشيخ مشكورا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaan hore uga soo warannay qiso dheer oo tataarka nimanka la yidhaha ama mongolianiska ku magac dheeraa iyo dagaalkii ballaadhnaa ee ay dunida ku soo qaadeen siiba dadka muslimiinta ama caalamulislaami. afar darisoo hore waxaan kaga warannay laba ahaan dowladdii addowla alkhawaarzimiya ee bariga muslimiinta ka telin jirtay iyo siday cagta u soo mariyeen. laba darisoo kalena waxaan kaga warannay addowla alcabaasiya oo ah khilaafadii islaamiga ahayd ee markaasi dunida ka telinaysay iyo siday u dhacday. waxayna ugu dambaysay iyagoo caasimaddii dunida muslimiinta gacanta ku dhigay magaalada baqhdaad la yidhaahdo muslimka looga telinayay. dadka badhnaa oo muslimiinta ka midina quustu ay gaadhay inay u qaateen in qiyaamihiiba dhici doono. marka baqhdaad dagaalkeedii dhammaaday ee aynu tilmaamnay inuu 40 casho markii dadka la leynayay kadib uu amar bixiyey magaaladii markii ay dadkii meydkii iyo wixii qurmeen ee jawigii isbedelay ee wabaa xanuuna ka dilaaceen inuu ciidamadiisa kala baxo. waxaa bilaabmay siyaasaddii caalamka ee waagaa in mar labaad haddana dib loo fakaro. haddii aan eegno caalamulislaami iyo wakhtigaas siduu ekaa laga bilaabo baqhdaad ilaa iyo jayna dacalkiisa laga gaadhayo inta ka dhexe leh tataar baa gacanta ku haya. laga bilaabo kuuriya ilaa iyo Poland Yurub laga soo gaadhayana tataar baa gacanta ku haya. dunida qitcada intaa leeg markaa waxaa ka talinaya dowladdii mongolianiska ahayd ee tataarka ahayd. xagga muslimiinta markaan eegno ee galbeedka xigay waa wakhti iyana dowla almuwaxidiin ay dumaysay oo ay sii socotay oo dowla almuwaxidiin markaasi iyana waa soo burburtay oo andalus qaybo ka mida markaa dib waxa ula wareegay ee dowladihii yarraa ee gaalada ee ka jiray. xaggaana dhanka muslimiinta waa laga soo cidhiidhiyey oo way soo dumaysaa. waxa hadhay oo quri markaa waxa weeyaan qaybtii uu ka dhintay salaaxaddiin alayuubi ama dowla alayuubiya dowladdii lo odhan jiray. waxaynu naqaanaa wakhtigan baqhdaad maalinta la qabsaday iyo geeridii salaaxaddiin waxaa u dhexeeya 66 sannadood mise 67 sannadood. salaaxaddiin 589 hijriyaduu geeriyooday. baqhdaadna waxaa la qabsaday 556. taa macnaheedu waxa weeyaan 67 sannadood baa u dhexeeya geeridii salaaxaddiin. salaaxaddiin sidaynu naqaano dowlad weyn oo islaamiya buu aasaasay 569 hijriyada. muddo 20 sannadood ayuu xukumayey. wuxuu mideeyey markaa caalam aad u ballaadhan oo muslimka ka mid ah. dowladdaasi waxay ka telinaysay markuu dhiman doono allah u naxariistay salaaxaddiin alayuubi waddanka masar la yidhaahdo, falastiin, suuriya, turkiya koonfurteeda, xijaas iyo yaman. inahaasoo dhan bay markaa ka telinaysay oo gacanta ku hayay. wuxuu dib u celiyey salaaxaddiin saynu wada ogsoonnahay weeraradii ay reer yurubku qaadeen ama dowladii kristanka ee yurub dagaaladii ay ku qaadeen ayuu dib u celiyey. waxaanu mar kale dib u xoreeyey bayt almaqdis oo waqactu xatiin kadib 3 bilood kadib ayuu wuxuu xoreeyey
bayt almaqdis. salaaxaddiin alayuubi markaasi wuxuu dhintay baynu nidhi isagoo masar iyo shaam iyo xijaas iyo yaman iyo ciraaq qayb ka mida iyo turkiya qaybo ka mida iyo libiya iyo nawba inahaasoo dhan isagoo ka taliya ayuu geeriyooday. kiristankii markaasi soo duulayna ay ku hadheen dacal yaroo xeeba oo raacsiisan lebnaan iyo dacalladeeda sii raacsiisan. hase yeeshee geeridii salaaxaddiin alayuubi, salaaxaddiin wuxuu ahaa nin muslima oo akhlaaq fiican oo dhaqan toosan oo islaamiya leh, culamana ay agtiisa taagan tahay. waxaa nin mujaahida oo la yidhaahdo 20kii sannadood ee uu xukumayay, waxaan filayaa inay taarikhyahanadu sheegaan 16 sannadood inay khaymadiisu ay ka dhisnayd goob dagaal. yacnii qaa'id caskari oo ciidamo hogaamiya ayuu ahaayoo aad muxanak u ah. wuxuu ahaa rajul siyaasiya oo masar intuu ra-iisul wasaare ka noqday dabeetana dowla alcabiidiya aw alfaatimiya, dowladdii shiicada sheegan jirtee meesha intuu ka takhallusay dib u soo nooleeyay sunnada waxa loo yaqaano. idan qaa'id caskariya iyo qaa'id siyaasiya labadaba nin aabuu ahaa, iyo nin muslimoo taqiyo alla ka cabsi badan. markuu geeriyooday may dhicin shakhsiyad isaga la midoo booskiisii buuxisa. dhibaatooyinka duwalkii islaamigaa soo qabsadayna waxaa ka mid ahaa inta badan ee cusuurtii dambe oo dhan may dhismin dowlad mu'asasaad ah, ee waxay dhismay dowlado hadba ninka xukumaa noocuu u eg yeella ula ekaanaya. haddii nin cadiimoo weyni u soo baxana dowlad weyn noqonaysa, haddii waaxid akhasunaasi uu qabsadana burburku uu ku dambaynayo. salaaxaddiin alayuubi markuu meesha ka baxay ee geeridii u timi, addowla alayuubiya way burburtay. 17 wiil buu dhalay oo uu ka tegey, qaybiba dhan bay goosatay. nimankii ay isaga walaalada ahaayeen qaybay goosteen, umaradii gobollada kale xukumaysay ninba magaalu goostay. si fudud waxaa u duntay dowla alayuubiya. dabeetana waxaa ku dhacay burbur ay dib uga soo kaban weydo, bale xad colaaddii iyaga u dhaxaysay ay keensato inay iyagu isu adeegsadaan masiixiyiinta, oo badharhka qaarkood ay kula gorgortameen dowladihii masiixiga ee markaa dagaalada ku soo jiray inay baytalmaqdis u celiyaan si ay hebel kale u qabsadaan, oo dib ay u dhacdayba inay qabsadaan baytalmaqdis nimankii kiristankaa. wadciga caynkaa u eg ee alqaadi alfaadil sheekhii la odhan jiray isagoo ka murugaysan oo nimankii uu ka tegey salaaxaddiin la hadlaya buu wuxuu yidhi: ama hada albeyt faina alaabaa'a minhu itafaquu famalakuu waina alabnaa'a minhum ikhtalafuu fahalakuu waidaa garaba najmun fama alxiilatu fi tashriiqihi waidaa bada takhriiqun fi thawbin fama yaliihi ila tamsiiquhu wahayhaata an yasudda calى qadri طariiqihi waqad qutira طariiquhu waida kana allahu maca khasmin calى khasmin faman kaana allahu macahu faman yaqdir calayhi. weedhahaasiya uu ku tilmaamayo reerka kan buu leeyay, yacnii ayuubiyiintii aabbayaashii way midoobeen buu yidhoo duniday xukumeen, dhashiina way kala yaacday, dabeetana way halaagsameen buu leeyahy. xidig hadduu dhaco yaa xeelad garanaya buu yidhi dib loogu soo saaro uu dib u soo iftiimi karayo. maradii dilaacdaa waa sii googo'daa unbuu leeya waa kala tagtaa. yacni wuxuu sawirayaa markii horena salaaxaddiin iyo walaaladii iyo raggii la socdaiyo ciidamadiisu dad wada socda bay ahaayeen, dabeetana carrigoo dhan bay qabsadeen. markuu dhintay dhashiisii iyo walaaladii iyo wixii ka dambeeyeyna way isqabteen, dabeetana way halaagsameen. wadcigoo sidaasiya ayaa baqhdaad la qabsaday. dabeetana calaa hada alasaas dowladdaa weyn ee tataarka ee min poland ilaa baqhdaad ilaa china ilaa kuuriya ka talinaysa dhan bay taagantay. dhankan kalena waxaa taagan muusil oo madaxtooye leh, xems oo madaxtooye leh, xalb iyo dimashik oo madaxtooye leh, miya farqiin oo madaxtooye leh. maxaanku idhaahdaaye yacni magaalo kasta oo magaalooyinka shaam iyo jaziira alcarabiya iyo dhulkaa ku faafsan
oo meel walba dowlad yaroo gaari ka talinayso dowladda intaa leeg ee ballaca intaa leeg oo la yidhaahdo hoolako mararka qaarkood waxay ku tilmaamaan mu'arikhiinta qaarkood ciidamadu gacanta ku watay 250 kun oo caskari buu watay bay yidhaahdaan dee qoladan kalena waa magaalo intay doontaba magaalo ha leekaato waa hal magaalo ah ka weyn baa markaasi ugu xooga buuraa waa ka isku haystay xalab iyo dimashq oo laba magaalo haysta ayaa markaa naasirka kaasaa ugu buuraa calaa hada alasaas ayaa cid waliba awraaqdeeda siyaasiga ku tartiibsatay holako baqdaad buu ka guuray wuxuu qabtay hamadaan waa bershiya iiraan qalcad shaha la yidhaahdo xaggeedu qabtay oo buxayrada la yidhaahdo ormiya waa waqooyi galbeed ee iiraan bay ku taallaa meelaha meel ka mid ah qalco ku taal buu degay wixii uu xoolo ka soo qaatay magaalada baqdaad iyo qusuurtii boqortooyadii cabbaasiyiinta iyo qasnadihii baytilmaalka muslimiinta iyo guryihii tujaarta waayo waa magaaladii caalamka ugu dad badnayd baqdaad marka kan waa caasimadda dunidoo dhan ugu dad badan bay wakhtiga ahayd iyo magaaladii baqdaad la odhan jiray tujaarteedii iyo wixii xoolo laga soo dhacay ayuu wuxuu ku soo xaraystay qalcaddaasi oo meel hawo yaroo muctadila leh oo uu ciidamadiisana dejisan karaa wuxuu bilaabay markaa ciraaq maadaama uu madaxdeedii hayo siduu tallaabada labaad u bilaabi lahaa oo ah shaam iyo dhulkaasi sidii uu qabsan lahaa waa syriya siduu dagaalka ugu bilaabi lahaa inuu daraaseeyo dadka muslimiinta ah iyo magaalooyinkaasi islaamiga ah niqaati dacfigooda ama meelahay godololada ku leeyihiin iyo meelahay ku xooggan yihiin halkaas ayay isaga arrini ka joogtaa ama wadciga kale haddaynu eegno hal nin oo maya faarqiin magaalada la yidhaahdo ka talin jiray waa kaamilkii labaad alkaamil moxamed athani alayubiy kaamil horaa jiray alkaamil alayubiy la odhan jiray kani waa kii labaad magaaladaasi miya faarqiin ninka la yidhahdo ninka ka tala jiray miya farqiin waa magaalo iminka saliva iyo magacaynkaasay leedahay turkiya ku taalla waa diyaari bakr kurdidu qaybtan ay ka degto turkiya waa magaalo ku taalla magaaladaasi ninkii madaxda ka ahaan jiray ee agagaarkeeda ayaa baqdaad intaanay dhicin wuxuu arkay caalamulislaami inuu khatar ku jiro dabeetana wuxuu u soo kicitimay ayuubiyiinta raggii ahaa ee kala googo-ay isaguna oo nin ayuubiya inuu midayn karo oo uu isu keeni karo dabeetana wuxuu yimi magaalada dimashq oo caasimaddii ugu weynayd markaa shaama dimashq waxaa haysta annaasir yuusuf alayuubi ninka la yidhaahdo ninkaasuu u yimi dabeetana wuxuu ku yidhi ina haؤulaaءi tataar laa tufiidu macahum mudaara walaa tanjax fiihim khidma walaysa lahum gardun ila fi dihaabi اlanfusi wاlistiilaa'i cala اlbilaad wamowlaana الsulطaan qad badala lahum alamwaala min sana 42 ila اlyowm boqorkii meesha tan haystuu la hadlaya wuxuu leeya war tataarku niman muslaxasho yaqaana ma aha waan kuu shaqaynaya xataa lagagama nabadgala buu leeyahy dan kaloo ay leeyihiin ma jiro inay bini aadamka tirtiraan mooyaane iyo dhulka iyo hantida inay qaataan mooyaane u fiirsa buu leeyahay boqorkii dowlal cabbaasiya haystay min 642 laga soo bilaabo buu leeyahay ilaa iyo hadda oo yacni 656 ilaa hadda buu leeyahay xooluun buu waday oo wuu muslaxayay uun muxuu ka faa'iide ka dhacay buu leeyahy waxba lagama helin war waxaan kugula talinayaa buu leeyahy kalaamu badrudiin ha maqlin badrudiin waa muusal kii haystay ninka muusal magaalada la ydhaha ciraaq ku taalla haysta badrudiin lu'lu ninkii la odhan jiray khaa'imiinta ugu waaweyn ka tirsanaa waar kaa warkiisa ha dhegaysan buu leeyahy ergeyga aad diratay ee wasiirka kuu ah ee la yidhahda azayn alxaafidi isna warkiisa ha dhegaysan buu leeyahy waxay rabaan buu leeyahy inay kaa dhigaan khubs iyo maciish raashin la cuno inay kaa dhigtaan bay rabaan buu leeyahy taladaydu waxay tahay buu leeyahy nimankaasi tataarkay u yihiin rusul oo ay
iyagay dooranayaane adiga ku dooran maayaan buu leeyahy waxaanay rabaan inay kaa saaraan un boqortooyadaada ee nin yahow anigu waxaan go'aansaday inaan dagaalamoo dhinto naftayda ilaahay dartii baan u bixinayaa ee ciidamada aan isku darro waa baqdaad intaan la qabsan oo baqdaad aan u hiilin noo gargaarna buu leeyahy labadeenna ciidan hadduu israaco aynu baqdaad gaadhno waynu dhicin karaynaa baqdaad gacanteennay gelaysaa haddii aynu boqorka markaa sultaankii muslimiinta aynu badbaadinno hadhowna dee niman u hiiliyey boqortooyadii islaamigaa baynu noqonaynaa gacan weyn baynu helaynaa haddii aynan ku gaadhinna war waa u aargoynaynaa buu leeyo tataarka waa celinaynaa waxaa ka muuqata ninkan alkaamil moxamed alayuubi inuu kalsooni ku qabo ciidamada muslimiinta isagoo haysta iyo kuwan shaam jooga haddii la ysku daro inay difaaci karaan tataarka waxaa kaloo uu arkayaa difaacu inuu baqdaad ka bilaabmay inaan loogu imanin miyafarqiin iyo dimashq inaan loogu imanin ee xagga hore inuu dagaalka ka galaan ama naasir isagu sidaa ulama muuqato naasir wuxuu arkayaa arrin ka gedisan halkuu ninkani ka arkayo baqdaad hadday dunto inay iyana dumayaan naasir sidaa ugama muuqato naasir wuxuu isku dayay inuu ciidamadiisa oo nimankii madaxda ahaa soo ururiyo oo war weydiiyo war ninkaasi intaanu inoo imin ma iska celinaa mise waa la shiraa waxaa laga baqayaaba xataa in lala shiro ciidamadiisa intii badnayd waxay isku raaceen inay la shiraan laakiin kuwii uu ka digayay qaar ka mid ah azayn alxaafidi iyo saalix nuuraddiin iyo ashraf ibnu lmansuur kii saaxibu xims ka taliya iyo xumus kuwaasi waxay u arkayaan inaan ninkaa lala shirin wargaalka weyne hadduu maqlo ninkaasaynu la kulannay inagu inagu durdurinayaa bay leeyihin haynoo soo dhowaynin isagana meesha waxaa jira xisbi hoose oo tataarka la shaqeeya tataarku wakhtiga kan waa addawla alcaalamiya alkubraa waa alqutb alwaxiid waa dowladda keliya dunida wakhtiga ka talisa sidaa maanta dowladaha waaweyn ee dunida ka taliya ay u leeyihiin axsaab iyo afkaar waddannada yaryar ka furan oo fikraddooda hirgelinaysa oo wixii iyaga ka soo baxa ku shaqaynayo qaabkaa ayinbay wakhtiga kanna ahayd dowladdii weyneed ee tataarka markaa waxay leedahay rag badan oo afkaarteeda soo dhowaynayo oo leh nimanka ha laysu dhiibo waxbay layna yeeli maayo aan la dhaqanno saaxiib la noqonno halka aan kala wadno dad badan oo leh baa meesha jira arrintii may dhicin ninkii la odhan jiray almelik annaasir wuu aqbalay inuu ninkan soo dhoweeyo inay wada hadlaan laakiin wada hadalkiisii sidii uma muuqanin ee waxaa buu yidhi niyo waxaanad sheegaysaa wax soconaya maaha nimankan tataarka aniga weli waaba isku yaro fiican nahay adiga cid kuu shafeecda aan diro oo holaaka u tagta oo kaala hadasho adigana inaan waxba lagu yeelin dee aan sidaa yeella buu yidhi dagaalkan iyo baabkan aad sheegaysa inaan iska dayno kaamilkii wuxuu ku yidhi ji'tuka fii amri diini wa tucawidanii canhu biamrin dunawiy amrin diiniy ayaan kuula imi buu leeyahy adna beddelkeeda waxaad iiga warramaysaa adduunyo sidii loo heli lahaa baad iiga warramaysaa markuu arkay inaanu aqbalayn buu yidhi haddaba iska noqo haddii uu tataarku ku soo doonto markaasaan ciidamo kuu soo diraya ku caawiyo oo wax kaa dhiciye warkoo halkaa maraya ayaaba baqdaad duntay yacni waxaan rabaa intaynan hoolaako iyo socodkiisa ka warramin inaynu fahamno wadcigu halkuu marayay iyo siduu u ekaa qoladanoo wada hadalkaa wadda oo nina uu leeyahy war aan jihaad tagna nina uu leeyahy aan kaa muslaxo oo aan kuu soo shafeeco qaado ayaaba waxaa yimi khabarka odhanaya baqdaad in la qabsaday
dee ninkii awalba lahaa aan kuu shafeeco qaada hadduu maqlo baqdaadba waa la qabsaday warkii muxuu noqonayaa waa warcad kaamil wuxuu go'aansaday inuu noqdo se uu dagaalamo kooxdanna uu iskaga tago noqo markuu is yidhi baa waxaa la kulmay sheekhii la odhan jiray ibnu shadaad ibnu shadaad baa wuxuu ku yidhi alkaamil alayuubiyi buu wuxuu ku leeyahay inaad melik naasir u timaaddo horta waad asiibtay buu leeyahy fikraddaasi fikrad xun may ahayn laakiin noqoshadaadu fikrad saxa maaha buu leeyahy oo maxaan yeelaa war naasir yuusuf hore u dhaaf buu leeyo masar qabo iyo nimankii mamaaligta ahaa masar dowlo cusub baa ka bilaabantay oo dowla layuubiya way dhammaatay dowlo mamaalik la yidhaahdaa markaa ka soo bilaabantay dhaaf buu yidhi kanoo dowladdaasi u gudub kaamil baa wuxuu yidhi waxaan ka baqay naasir qalbigiisa iyo baqashadiisa waana col qoladaa marka haddaan xaggaa usii tallaabo inuu isaguba dagaalka nagu qaadaa baan ka cabsanayaa buu leeyahy sidaa awgeed masarna uuma gudbi kara buu leeyahy ibnu shadaad baa wuxuu ku yidhi haddaba intaad miyaa faarqiin ku noqoto kanaad leedahay wuu baqayaa carruurtaada iyo reerka iyo waxoo dhan intaad soo kaxayso isaga dulkeed oo dhan war waa kuwan waxaygii oo dham iyo waan kula dhimanaya magaaladiina madaxu yeel laakiin taasna muu qaadanin waayo wuxuu arkayaa ninkani inaanu ahayn nin marnaba u soo jeeda dagaal marka qadiyaddu markay halkaa maraysay kaamil wuxuu ku noqday magaaladiisii hoolaako iyo ciidamadiisiina koox yar oo ilaalisa ama waxoogaa ciidan uu baqdaad kaga dul tegay laakiin ciidamada intii badnayd eeraan waqooyigeeduu la kacay waxaa bilaabmay dowladihii yaryaraha ee islaamiga ahaa iyo raggii ka telinaya madaxda ahayd wufuud inay soo wada diraan ama iyagu yimaadaan iyagoo madaxweynaha cusubi guusha uu gaadhay ku tahniyadaynaya maxaa la tahniyadaynayaa 1 milyan oo muslima oo baqdaad lagu xaaqay iyo caasima alkhilaafa alislaamiya oo tirtirantay tahniyadeeday u socdaan markaa waxaa la tahniyadaynaya maxay hoolaako waa ninkaasi gaalka ah ciidankiisa wuxuu soo kaxaystay isagoo 38 jira waxaanu ku dhintay gebigiiba 48 jir meelahaasaan filaya hooyadii kristan nastuuriya bay ahayd xaaskiisuna waa kiristaanad iyaduna xaaskan hadda aabbihii buu ka dhaxlay aabbihii baa qabi jiray aabbihii markuu ka dhintuu isna dib u guursaday hoolaako madhabkiisa diinigiina waa madhabka rawxaaniga ah ee arwaaxda iyo shayaadiinta iyo beliya baaskaasi in la caabudo oo 1 milyan oo muslima dhiiggooda ku faraxashay magaalo qura ma aha intuu dad soo laayay waxaan ka warramayaa waa maxay waa baqdaad keliyaa la leeyahay min 800,000 ilaa milyuun ayaa la gaadhsiinayaa dadka qaarna way ka badiyaan mu'arikhiinta qaarkood ayaa wufuuddii caalamulislaami ka socotay soo socotaa iyagoo raba inay tahniyadeeyaan waxaa yimi amiirkii haystay magaalada muusa la yidhaahdee ku taalla ciraaq oo badruddiin lu'lu waa ninkii uu lahaa alkaamil waar badruddiin warkiisa ha dhegaysanin ayaa u horreeyo soo socda oo kaalmaynaya oo tahniyadaynaya waxaa yimi mantiqat alanadol ama turkiya qaybo ka mid ah siiba wasti turkiya bartamaheeda labadii nine ka talinaya dowlatu salaajiqa alislaamiya ka soo hadhay ka kaws athani iyo qalj arsalaan araabic labadaasaa yimi oo iyana hoolaako ku tahniyadaynaya sida uu galay culammadii muslimiinta iyo boqorkii muslimiinta iyo waxaaba markii la biraynayay sidii uu gowracay waxaa kaloo yimi al-ashraf ilayuubi nin isna ayuubiyiintii ka mid ah oo haysta magaaladan xims la yidhaahdo
ee hadda dagaalladu ka socdaan. waxaa kaloo yimi oo isagu wafdi gaara soo diray annaasir yuusuf oo ah amiiru xalb wa dimashq. waxaa awow roma u ah salaaxaddiin alayuubi. salaaxaddiin alayuubi kuu awowga u yey inankiisii buu soo diray oo uu hadyade u soo dhiibay oo uu leeyahay bogaadi muslimiintaasi la jebiyey, oo weliba dano kalena wuu soo diray. dadkii muslimiinta ee madaxda ka ahaa ciraaq waqooyigeeda iyo shaam iyo turkiya iyo mandiqada intaa leeg waxay yimaadeen iyagoo holaako ku tahniyadeynaya jabkii uu muslimiinta jebiyey. amaa holaako dhankiisa haddaynu ku noqonno, waxay yidhaahdaan laba mushkiladood baa markaa isaga hor taallay. midi waxa weeyaan nin uu u arkayo inuu isagu mucaahadaadkiiyo waxa kan aanu raacsisnayn oo luqada casrigan lagu hadla aynu odhan karno irhaabi buu ku sifeeyey inuu yahay, oo isagu u baahan muslimka dhabta ee samaaxada iyo nabadgelyada ka warrama aan ahaynee muslimka xag jirka ah waa alkaamil moxamed alayuubi iyo miya farqiin magaaladiisii la odhan jiray maya faariqiin. mushkiladda ninkaa inuu meel ku hubsado taasi waa dhan. maya faariqiin magaaladan la yidhaahdo iyo alkaamil moxamed alayuubi waa inuu meel ku hubsado. magaalada tani maya faariqiinta lagu sheegayo waa dhulkii cumar binu lkhadaab furtay cahdi saxaaba 18 hijiriyada ayay muslimiintu meesha tan furteen. waxaanay ku taallaa baynu nidhi buxayrada waan la yidhaahdo ayay ku taallaa dhinaceeda galbeed. waa sharqi turkiya, waa turkiga dhankiisa bari bay ku taallaa. ninkan kaamil moxamed la yidhaahdaa markaasi turkiga berigiisa mandiqadaasi siiba mandiqat aljaziira loo yaqaano. jaziiradu waa labada webi ee dajle iyo furaad inta udhaxaysa. inahaas buu ka talinayay oo waqooyiga ciraaq oo galbeedka xiga iyo shimaali sharqi suuriya iyo diyaar bakri in ku beegan inaha weeyaan intuu ka taliya ninka kani. taasi waa mushkiladda koowaad oo magaaladaas iyo wixii laga yeelayo iyo ninkaasi. mushkiladda labaad waxay yidhahdaan waa mushkilad taafih oo ah boqorradan iyo waxaan u yimi nin waliba wuxuu rabaa meeshii uu haystay inuu u daayo oo uu uga wakiil noqdo uun dowladda weyn, inuu saaxiib la noqdo wakiil ka noqdo oo meelahaasi ka taliyo. holako waa nin daki ah. waxa uu u fiirsaday qadiyaddan siduu u maamuli kari lahaa. kow, ninkan loo taag la'yahay dagaalka doonaya wuxuu go'aansaday inuu u diro rasuul ergeyga gaarka ee dowladda weyn ka socda in loo diro. ergeygan gaarka ahi wuxuu sidaa war sheegaya fikraddan daa'ishka ama fikraddan mintidnimada inuu ka noqdo, oo dadkii kaloo dhammiba waa kuwa tahniyadaynaya isa soo dhiibaye isaguna inuu isdhiibka aqbalo. ergeyga loo doortay waa ergey gaar ah oo afka carbeed ku hadla laakiin masiixiya. waa wadaad carbeed oo qisiisa oo yacquubi la yidhaahdo. ninka kani dhowr shayba wuu loo doortay. kow, waa nin af carabi ku hadlayo ay isfahmi karayaan alkaamil alayuubiy oo waxa laga rabo u sheegi kara, isla markaana dee xarbi nafsiga samayn karoo sheegi kara tataarka iyo xooggooda iyo intay leegyihiin iyo waxay dad soo laayeen iyo bahala cuninayiin iyo niman aan xaggooda dee la eegi karin inay yihiin nin sharxi kara weeyaan. waa marka labaadee waa nin masiixiya. nin masiixinimadani macno kaley samaynaysaa marka kanoo waxaa la rabaa in la tusiyo qoladan muslimiinta ah kristanka iyo dowladda tataarkii inay wada socdaan oo qadiyaddaana fahmo. weliba
maya farqiin meeshan la yidhaahdo iyo gobolkan uu ka talinaya alkamil moxamed alayubi dowladaha ku hareeraysani dhanka bariga armeniya ka xigta oo boqortooyo kristan markaa ah dhanka waqooyiga waxaa ka xigta kurj waa georgiya oo iyana ah dowlad masiixiya maadaama labada dhinace kaleba ay ka xigaan labadan dowladood xagga hoosena oo weliba junuub sharqiyana dee badrudiin lu'lu' baa ka xiga waa muusal oo isna waa ninkii hore ee xagga kan tegayey dhanka waqooyi galbeedna waxaa ka xiga labadii nine kale iyana dowladda u yimi ee kakows iyo arsalaan labadii boqortooyo kale ka xiga markaa wuxuu ku jiraa xero dhammaanteed ah xilfiga holaako waqooyi bari koonfur hawd galbeed dhan walba xilfiga ayaa ka xiga mandaqada qudhe u bannaanaan kartaa waa ninkan ay isku reerkayeen mandaqadiisu ah in turkiga hoostiisa laga baxo dhanka iyo xalab dabeetana dimashq loo kaco intaasoo qudha dee naasir yuusufna isna kama gadisna kuwa kan marka wuxuu u eg yahay jasiiro yaroo mu'mina oo ku dhex taalla koox maxaynu nidhaahnaa munaafiqiin iyo gaalays wadata ah ayaa dhan walba ka soo xigta kamil wuxuu qaatay go-aan ah oo ku dhex taalla koox maxaynu nidhaahnaa munaafiqiin iyo gaalays wadata ah ayaa dhan walba ka soo xigta kamil wuxuu qaatay go-aan ah inuu dagaalamo meel kasta awooddiisu dhigto inuu dagaalamo ergeygii la soo diray jawaab wuxuu ka dhigay inuu isaga madaxa ka gooyo islaamka ma aha in ergada la laayo hase yeeshee ninka kani wuxuu ku kacay ergeygii loo soo diray qisiis yacquubi isagana madaxuu ka gooye marka waa iclaanu xarb waa dagaal baan diyaar u ahay hoolaakowe wixii kale aad samaynaysa adugu wareeg hoolaako markii uu ninkani dagaalkaasi iclaansaday ciidan buu diyaariyey uu u dhiibay inanuu dhalay oo ashmat ibnu hoolaako la yidhaahdo ayaa ciidan la siiyey waxaa la yidhi adugu waxaad u kacdaa maya farqiin magaaladaasi alkamil alayubi uu haysto ayaa ciidankaasi loo diray isla markaa waxaa la amray duwalkii yarraa ee hereeree ka xigay inay dee irhaabigaa dagaalkiisa ka qayb qaataan dabeetana labadii dowladood ee armeniya iyo georgiya ee xagga sare ka xigay iyana ciidamay soo direen ay dhankooda dagaalka ka soo gelayaan waxa uu go'aansaday ciidamadiisa inuu maadaama laga tiro badanya inuu magaalo isugu geysto oo meel qura dagaalka ka galo 4 bilood qabsashadii baqdaad kadib rajab markay marayso ayaa la go'doomiyey magaaladaasi maya farqin la yidhaahdo magaaladani way dagaalantay waxaanay go'aansatay inay dagaalka wadaan amiirka hogaaminaya waa nin geesi ah isla markaasi waa nin gacan furan laakiin waa nin nool duni aqbiyaa ay nooshahay madax muslimiin oo magarato ah ayuu ku dhex nool yahay waxa uu go'aansaday markaas wixii uu hanti haystay intuu dadka isugu yeedho inuu yidhaahdo waxaan adduun hayoo dhan waan ka baxay hadday dahabtiiyo hadday fidata iyo hadday makhaasin tahay ma magaalada hala difaacdo xoole waxaynu haysanay waa kuwa kan dadkoo dhammina waxay aqbaleen inay dagaalka la qaataan qoladii gaaleedna waxay qaadatay go-aana inaanay isku maqiiqin meesha tan ee inay go'doomiyaan un xisaar in la saaro xisaar baa la saaray ciidamada uu wato ninkan alkamil moxamed waxaa ku jira bay idhaahdeen 2 nin oo farisiyiin ah yacni 2 faris ama 2 dagaalyahan
oo ciidanka tataarka aad u dawakhiyey xamlaad aad u adag oo ku dhufo ka cararana ku qaaday waxaa aad ugu adkaatay tataarka inay magaalada tan galaan laakiin dhanka kale waxaa u fududaatay go'doomintu inay mid dhaban noqoto dhinacyadii gaaladu ka xigtay dee ciidamaba ka soo xiga dhinacyadii muslimku ka xigayna waxay aqbaleen النظام الدولي الجديد inay u hoggaansamaan waxaa cilaaqaadka loo gooyey markaasi magaaladaasi miya farqiin la yidhaahdo iyo wixii degganaay oo dhan waxaa la joojiyey in waxba haba yaraatee laa raashin walaa biyo walaa hub walaa waxba toona inaan laga gadin ama xaggooda loo kaxaynin shacab iyo ummadiba oo isku raacdo yacni waxaan rabaa inaynu ogaanuun taariikhdu mar kasta oo muslimiintu ay daciifaan iimaanku uu liito mabaadi'du ay lunto waa nafsuha taariikhda idinku nooshin waxaa maqlayseen ciraaq baa la go'doomiyey muslimkuna waa la go'doomiyey raashinka iyo wax walba waxaa maqlayseen ghaza la go'doomiyey raashinka iyo hubka iyo wax walba waa loo diiday dowlad weyn oo dabaabayaal iyo kaarayaal iyo dayarada wadataana waa garaacaysaa waa tumaysaa kuwa ku xigaana godkay qoteen ee ay bariiska ka raadsadeen godadkay ka duminayeen waa nafsuha waa shaakiladaasi uun marka kan addawla alkubraa maraykan maaha addawla alkubraa dunida markan ka talinaysaa waa mongolian waa dowladda tataarka duwalka yarar ee muslimiintuna waa tuulo tuulo waa ximis iyo muusul iyo xalab iyo dimashq iyo maardiin iyo waa magaalo magaalo waa sidaa imika u yihiin un gobol gobolka yaryar iyo waxa yaryar waxaa la amray markaasi cunaqabatayn in la sameeyo cunaqabatayntaa cid dumin karta ama ka hortegi kartaa ma jirto caalamulislaami dowladihii yaryaraa ee dhammoo joogay waa isku raaceen waxaa iska macruufa wakhti kasta sida ay u jiraan dad muhabitiinah oo dadka niyaddooda jabiya oo dib u dhiga oo yidhaha wax layskama celin karo oo in laysdhiibaa roon oo kan waxaa akhriya marka kasta waa joogeen waa la akhrinayay qaar munaafiqiin oo madaxda nooca kana ammaanoo yidhaahda min alxikma waasiyaasa farsamada nimankani hayaan ayaa xikmadda iyo siyaasaddu mar walba waa joogtay waa joogeen mar walba dad yidhaahda cidda muslimka ee isku dayda inay wax iska dhiciso la yidhaahdaa waa waalayin ama may xisaabtamin ama waxba kala garan maayaan cid tidhaahda waa joogtay magaalada tani laakiin waxay go'aansatay inay wax iska celiso waxyaabaha aadka u cajiibkaa markaa waxaa ka mid ah taarikhyahanadu ay sheegaan dadka qaar waa la fahmi karaa bay leeyihin baqaa iyo waxa ku kalifay waxaa ka mid ah muusalkaa haystee badrudiin lu'lu ah iyo salaajiqada madaxdoodii qoladii turkiya ka talinaysay kekawsathani ama qalj arsalani raabica kale laakiin waxay leeyihiin ceebtiisa waxa aan la aqbali karin ee la qaadan karin waa ninkana isku reeriyiina shalayna uu yimi u lahaa waraan kula difaaca waddannada ee ila difaaca ee lahaa ciidan baan kaa soo daba diri doonaa iska noqo annaasir yuusuf alayuubiy oo labadii magaalo ugu xoogga badnaa ama ciidamadii ugu xoogga badnaa markaa isagu haysta muu eegin diin iyo caqiidadii kala dhexaysay ma eegin jaarnimada iyo waxa kala dhexaysa ma eegin bucdiga istaraatiijiga iyo haddii kan la soo cuno in isagana berrita la cuni doono intaa waxa u dheer labada ninba waa ayuubiyiin waa isku one family muu eegin qoladan la bakhtiinaya isla faamiligiisii inuu yahay shalay baana awowgood dhintay salaaxaddiin alayuubi waxaasoo dhan ma eegin isagoon salaaxaddiin alayuubi 70 sano weli ka soo wareegin ayuu xaalku halkan maraya alkaamil ninkani waa kii yidhi marka lagu weeraraabaan kuu soo hiilinaya nujda iyo kaalmu ka dalbaday se waa diiday inuu u gargaaro wax kaalmaa inuu u diro waayo kumaba fakerin marnaba inuu dagaalamo bal dee wufuudda raggii dirayay buu ka mid ahaa inuu ninkan u gargaaro daayee wafduu diray uu madax uga dhigay inankiisii alcasiisa lo odhan jiray oo hadiyada hoolaaka ugu sii dhiibay hadiyadaha iyo bogaadinta muslimka laynteeda markuu sameeyo kadib codsina wuu u dhiibtay hoolaako
uu leeyahay qolo xaggan iga xigtoo masar la yidhaahdaa baan rabaa inaan ku duule waxaan rabaa dee dowladda weyne inay caawiso qolada tani la qabato bal waalidaa arag adigu muslimka xaggan laga soo xaaqaya kaydadiisu xigeen baa hadda xisaar ku jira isna gaalku wuxuu weydiisanayaa in madad la siiyo qolo kaloo muslimiin oo masar la yidhaahdo xaggan kasii xigta dowlat ilmamaalik inuu ku duulo laakiin dee nimankan siyaasiyiinta ee waaweyne markaa dunida ka talinaya ninkan nacasnimadiisa wuu fahmay holaako wuu xanaaqay wuxuu ka xanaaqay sidee iyadoo madaxdii waddannadu ay imanayaan oo lay bogaadinayo oo lay tahniyadaynayo aad adigu inankaaga u soo dirtee tahniyadda adigu aada uga soo qaybgeli weyday mas'aladaa holaaka wuxuu u arkay inaanay sha'nigiisa weyn wax u cunta ma ahayn nooc min xaqiraada inay tahy dowlati tataari alkubraa inuu usoo diro dimashq iyo xalab ninka haystaa inankuu dhalay wax cuntama maaha muu liqin arrinkaa iyada dowlad kalean kusii duulayaa ee caawadaba intaan la islaba gaadhin may tani u cuntamin sidaa daraaddeed holaaka warqad buu qoray waa naasir yuusuf uu u dirayo waraaqda maxaa ku qoran waxaa macruufa holaaka af carabiga ma yaqaano mongooliyana carabiga laguma yaqaano laakiin meel kasta kuwa aftahano oo turjumaano oo munaafiqiin oo aduba oo luqada yaqaano wax walba yaqaanaa hoos ordaya waatan warqaduu qoray bal holaaka warqadiisa u fiirso naasir yuusuf wuxuu leeyahay hallay caawiyo holaaka jawaabtan buu u diray alladii yaclam bihi almaliku naasir saaxibu xalb أنا قد فتحنا بغداد بسيف الله تعالى وقتلنا فرسانها وهدمنا بنيانها وأسرنا سكانها كما قال الله تعالى في كتابه العزيز إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون واستحضرنا خليفتها وسألناه عن كلمات فكذب فواقعه الندم واستوجب منا العدم وكان قد جمع ذخائر نفيسة وكانت نفسه خسيسة فجمع المال ولم يعبأ بالرجال وكان قد نمى ذكره وعظم قدره ونحن نعوذ بالله من التمام والكمال إذا تم أمر دنا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وكم من فتى بات في نعمة فلم يدر بالموت حتى هجم إذا وقفت على كتاب هذا فصارع برجالك وأموالك وفرسانك إلى طاعة سلطان الأرض تأمن شره وتنل خيره كما قال الله تعالى في كتابه العزيز وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى waa waraaqda qur-aanku ku qoran yahay hoolaakay ka socota hoolaako wuxuu ogyahay nimankuu la hadlayaa noocayi saa daraaddeed wuxuu u diray waraaqda uu leeyahay wuu og yahay buu yidhi boqor naasir oo xalab ninka ka taliya ahi inaannu baqdaad ku furannay seeftii ilaahay buu leeyahay oo aannu geesiyaasheedii laynay oo aannu dhismaheedii duminnay oo aannu dadkeedii maxaabiis ka qafaalashiya maxaabiis u qaadannay sida ilaahayba qur-aanka ku yidhi buu yidhi boqorradu hadday magaalo galaan waa fasaadiyaan oo dadkeedii madaxda ahaa bay duleeyaan wakadalika yafcaluun waannu u yeedhnay buu yidhi boqorkeedii su-aalaannu weydiinnay been buu noo sheegay dabeetana bal ayaa qabsatay buu leeyahy waxaanu naga mutay dil buu mutay buu leeyahy xoolo badan buu urursaday naf liidatuu ahaa buu leeyahy xooluu ururiyey ragse muu dhaqan buu leeyahay xoolaha raggii ilaalin lahaa muu dhaqanin buu leeyahay magiciisaa weynaaday sharaf buu yeeshay ilaahayna waxaannu ka magan gallay buu yidhi dhammaystiranka dabadeed
nuqsaanta timaadaan ka magan galay buu leeyahy dabeetana gabay buu tirinayaa mas'aladaa ka warramaya wax waliba hadday kaamilka gaadhaan kamaal yeeshaan inay dhibaata ku dhacdo kadib buu wuxuu leeyahay hoolaako waraaqdaydaasi hadday ku soo gaadho fasaaric birijaalika wa amwaalika wa fursaanika ilaa taacati suldaani ilard la soo degdeg buu leeyay waxaad rag iyo xoolo iyo geesiyaal iyo farda haysataba soo kaxee oo degdeg ugu kaalay buu leeyay boqorka dunida ka taliya markaasunbaad sharkiisana ka nabadgeli kartaa khayrkiisana heli kartaa sida ilaahay baa qur-aanka ku sheegay buu yidhi waan laysa lilinsaani ilaa maa saca bini aadanba miyuu leeyahy wuxuu shaqaysta mooyaane wa anna sacyahu sawfa yuraa wuxuu shaqaystana waa u arki doonaa uma yujzaahu ljazaaء alawfa walaa marna buu yidhi hays hortaagin ergayga aan kuu soo diray sidaad ergaygii hore aanad isu hortaagtay aad u iman weyday dabeetana wuxuu ugu qoray faimsaakun bimacruuf aw tasriixun biixsaan waqad balagana ana tujaaru shaami wagayrihim inhazamuu bixariimihim ilaa masr weliba buu leeyahy waxay soo gaadhay tujaartaadii waxaysatay qaar badanoo ka midii inay carareen oo xoolihii iyo dumarkii iyo wixiiba ay qaateen oo masar ay u carareen waana waaqaco jirta ay culammadu yidhaahdaan fain kaanuu fi ljibaali nasafnaaha wain kaanuu fi lardi khasafnaaha waxaasii yaacoo dhammi buu yidhi hadday buura fuulaanna buuraha waan afuufi doonaa way bidi doonaan buu yidhi hadday dhul tageenna waan la goyn doonaayo way degi doonaan dabeetana gabay kale qoreen nimankii aduubadahaye waxay leeyihin ayna annajaatu walaa minaasa lihaaribin waliya albasiitaani الnadaa wاlmaau dallat lahaybatina alusuudu waasbaxat fii qabdati alumaraa'u wاlwusaraa'u gabay kale uu qoro marka uu leeyahay xaggee baa lagu nabadgelayaa xaggeese loo carari karayaa anigoo dunidao dhan yacni gacanta igu jirto haybadayada libaaxyadaa u dulloobay gacantaydana waxa umare iyo wasiiro dhammina halkan ku hayaa buu leeyahy waraaqdaasaa loo qoray boqorkii dimashaq haystay iyo xalabka talinayay maxaa ka filaysaan marka kursiga waa la jecel yahay in laga kacaana ma fududa ninkii uu hadaayaadkiiyo wax walba u dirayna saan buu ku soo jawaabay hadduu jihaad iclaamiyey markaa naasir yuusuf wuxuu leeyahy jihaad weeyaan waa mar baqdaadna la haysto miya farqiinna ay ku jirto xisaar ay ku jirto markay kursigiisa soo gaadhay ayuu jihaad iclaamiyey waxa kaaga daran jihaad iclaaminta nin buu haddana diray xagguu u dirayaa mamaaligtuu u diray masar buu nin u diray uu leeyahay soo gaadha shalayna xagguu u dirayey hoolaakuu nin u diro u lahaa i soo gaadh qolada maan qabsanayaa iyo ciidanisi kii uu lahaa waan qabsanayaa ayuu haddana u dirtay rasuule wuxuu leeyahay waar i soo gaadha waa lay hayaa tataarkii baa ay hayee yacni marka mabaadi'du lunto ee umamku ideologiga iyo caqaa'iddii waxay rumaysayiin markay lumaan saasay noqdaan ninkay marna cadow u arkaan marna saaxiib u arkaan ha la yaabin maanta haddaad soomaaliya kuwan iyo kuwa xiga iyo waxa xiga aragto marna xabashi laleeyahy waa lala dagaalamaya marna xabashi laleeyahay soo yaacona soo gaadho qolo kalaana haysee waa nafsu shay waa mabaadi'du hadday lunto kursigunbaa asala kursigaa wixii uu ku nabadgelayo haddii gaal la keeni kara iyo haddii muslim la keeni karaba wixii kursigaa ilaalin karaya waa la keenaya hadda ninkan odaygaa agtiisa jihaad baa ka iclaansan caamadana barh baa loo sheegayaa in jihaadkaasi la galo annaasira yuusuf magaalada ku xigtay wuu go-doomiyey oo raashinkuu ka jaray wax walbana wuu diiday ninkay tolka ahaayeen haatanna jihaad buu iclaamiyey dadkii barh baa xamaasaday qaadoo aqbalay waayo dadka waa muslimiin isla markaana gaalkan tataarkaa ma rabaan agtoodana waa ku adagtay in gaal uu xukumo bulshadii barh baa aqbashay dabeetana dagaal baa loo diyaar garoobay
laakiin dagaalku dhab ma ka yahay naasir yuusuf dagaalku dhab ma ka yahay su-aal isweydiin la weeyaan waxay ahayd hadduu dagaalamayo inuu ama kuwa xisaarka jira dagaalka ka dee taageero ama bal sidii kale uu dagaal u geli karo bal u fiirsa haddaba say taarikhyahanadu sheegayaan waxay dhahaan ciidan buu ururiyey ciidanku wuxuu ku ururiyey barza tuulo yaroo la yidhaahdo dimashq ku xigta ayuu ciidankiisi isugu keenay dee waxaanay ahayd xaguu ka taliyaa ma dimashq buu ka taliyaa mise ilaa xalab buu ka talinayay waxay ahayd inuu xalab xagga shishe ka maro waayo tataarku waxay go'aansadeen dhanka sare inay ka soo galaan iyadoon qadiyaddaa markaan ka warramayo hoolaaka iyo sheekadiisa tilmaami doono laakiin xalab kamuu difaac geline waddankiiba intuu ka soo kacay buu wuxuu yimi maxay dimashq duleedkeeda tuulo yaroo ku taalla ayuu ciidanka ku ururiyey si uu halkaa uga dagaal galo waxa uu sameeyey marka amiiradii kale meelahan daadsanay ee ayuubiyiintaha buu waraaqa u qortay amiiru kark waa albaxr ilmayit bay bariga ka xigtaa waa urdun qalco weynoo ku taalloo macruuf ahayd waa isna caa'iladdaa mid ka mid ah almuqiid fatxuddiin cumar nin la yidhaahdo ayaa ka taliya kaasuu u qortay uu leeyahay soo gaadh kanina waa nin shaakiladiisa marna yidhaha waan dagaalamaya marna dagaal ka baxa marna ku duula masar marna ka soo noqda intaa markuu sameeyey balan ninkaa iyo dagaalkiisa iyo diyaargarowgiisa halka ku dayno ninkii la odhan jiray hoolaako oo qalcadii shaha deggan oo ciidamadii meesha ku urursaday wuxuu diyaariyey sidii uu dagaalka u geli lahaa maadaama uu naasir yuusuf iclaansaday inuu dagaal bilaabayo waxa uu ninkani sii xoojiyey xidhiidhkii uu la lahaa masiixiyiinta isla markaasi waxa uu bilaabay si xidhiidhkaasi uu xoogoobo inuu hadiyado iyo abaalmarino siiyo boqorradii dagaallada la galay ee masiixiyiinta ahaa oo haythum oo armeniya ka talinaya iyo georgiya boqorkeedii iyo amiiru antakiya turkiga qayb ka mida nin ka talinaya bohamand la yidhaahdo kooxahaasi hadiyado badan buu siiyey ciidankiisii markuu soo kaxeeyey umuu arag boqorkan jihaadka iclaaminaya wax weyn inay tahy laakiin wuxuu bilaabay sidii uu ciidamadiisa u kaxayn lahaa ciidamadiisa marka la eego laba waddo mid baa u furan inuu ka soo baxo iiraan ou saxaarahan ballaadhan ee ciraaq iyo u dhexeeya suuriya uu maro oo uu dimashq halkaa ka galo oo dagaalkaasi uu si fija ah u galo laakiin ciidan aada u ballaadhanna wuu wataa inuu galo meel khatarana wuu diiday goobtani bidabt waa meeshii uu khaalid ibnu waliid markuu shaam iyo ciraaq dagaalka u kala soconayay waa dhulkuu fardaha ku maraya aan ceel iyo baatoona lahayn oo runtii cawaamishii nasriga alle uu ku siiye waaweynaa ka mid ahaa inuu saxaarahaasi muddo yar kaga gudbiyo ciidamadiisa laakiin ninkani wuxuu doortay waddo ka fudud inuu maro waa waddo ah inuu ciraaq waqooyigeeda u kaco laakiin taasi waxay keensanaysaa labada webiba inuu ka tallaabo oo uu turkiya xaggeeda hoose diyaar bakar soo maro oo uu dabeetana waqooyiga suuriya oo xagga sare uu ka soo galo oo xalab iyo dhankaasi uu kaga yimaado go-aankaa buu hoolaa ka qaatay inuu xagga sare ka soo galo waayo inkastoo anhaartiiyo webiyadu ay yihiin mucawiq dabiiciya yacnii shay ciidamo ballaadhan in laga tallaabiya ay adag tahaya haddana waa dhul daaqsin fiican leh oo fardaha iyo dee ciidanku dhulkan uu marayo
ay wax fiican ka helayaan biyo badan leh oo aan la harraadaynin isla markaana waa meel u dhow ciidankii hore meeshuu u diray oo haddii ay u baahdaan taakulayn miya farqiin ciidankiisii go'doomiyey inankiisu watay dee waddadan iyo meeshaas ilaa 170 kilomitir meelahaasay isu jiraan xaggaana taakulayn buu siin karaa wuxuu doortay markaa inkastoo cunsur mufaaja ay ahayd inuu tan kala maro inuu taa sare maro oo aanu ciidamadiisa iska lugoynin ay ciidamada aadka u ballaadhan ee ragga badhay ku sheegeen ilaa 250,000 qaar leeyihiin ilaa 220,000 aduu ciidamo 100,000 ayuu wadaa hamadaan buu ka soo dhaqaaqay isagoo dhanka galbeed u socda buuraleydaasuu ka soo tallaabay ciraaq ayuu waqooyigeeda bari soo galay magaaladan irbil la yidhaahdee kurdidu degaan buu maray waa sii dhaafay magaaladan muusal la yidhaahdo ayuu tegey oo badrudiin loo egri uu haysto waa ka tallaabay halkaasi wuxuu kaga tallaabay webigan dajla la yidhaahdo oo aynu odhan karno waa teedkii koowaad ee biyo ee celinayey oo ciidan intaa leeg in webi laga tallaabiyaa wax fudud maaha saa daraaddeed mantiqo aamin oo aan dagaal ku qabsanaynin waa inuu ciidamadan ka tallaabiyaa markaa badrudiin lo ma aha nin dagaalo waa ninkii soo dhoweynayey meeshaasuu ka tallaabiyey waa ka sii socday ilaa iyo uu ka tallaabay webiga dajla uu dhanka kale uga tallaabay dabeetana wuxuu sii qabsaday magaalada nasiibiin la yidhaahdo ee koonfurta turkiga ku taalla waa magaalo markaa 170 kilomitir u jirta miya farqiintii halkaa markuu joogay ee magaaladaa qabsaday aanu wax dhiba la kulmin ayuu magaalooyinkii yarraa ee agagaarkeedahana xaraan iyo raha iyo elbira iyo magaalooyinkaasoo dhan buu iyana cagta mariyey waa koonfurta turkiga oo dhan markaa ayuu gacanta ku wada dhigay halkaa markuu joogo waxay yidhaahdaan dhanka kale weli xisaarkii wuu ku socdaa magaalada miya farqiin inuu inahaa ka soo tallaabo oo uu soo socdo ilaa iyo uu soo gaadhayo elbira ayuu kaga tallaabay webigii furaat ee uu dambeeyey ilaa iyo uu ka soo gaadhayo xuduudda turkiga uu ka soo tallaabo oo u soo jirsado magaalada xalab la yidhaahdo in 50 kilomitir u jirta wakhtigaasi waxay ku qaadatay 1 sano ciidanka tiradaa leh in halkaa laga dhaqaajiyo sidaa loo wado intaasoo magaalo la dhex mariyo intaasoo dhan uu sii socdaa waxay ku qaadatay 1 sano muxaram marka ay marayso 658 ayuu wuxuu bilaabay inuu square ka qabto magaalada xalab la yidhaahdo xalab waxaa markaa amiir ka ah oo wakiil uga ah naasir yuusufkii adeerkii oo tooraan shaah la yidhaahdo oo isna ayuubiyiinta ka mid ah tooraan shaah waa nin mujaahida oo dagaalyahana wuxuu diiday magaalada inuu furo markaasi ee dagaal buu iclaansaday nimankii tataarka ahaana manjaaniiqdii ilaa 20 manjaaniiqdu waa almadaafic athaqiila fi hada alcasr waa madaaficdii waaweyneyd ee casriga derbiyada lagu dumin jiray ee magaalooyinka lagu weerari jiray ilaa 20 manjaniiq buu u rakibay waxaa bilaabantay in la garaaco magaaladii xalab lo odhan jiray sanad iyo 6 bilood meelahaas bay maraysaa markaa miya farqiin inta ay ku jirto go'doominta magaaladii miya farqiin lo odhan jiray waxaa ka dhammaaday raashinkii inayse isdhiibaan way diideen dabeetana wabaa xanuunna ka dilaacay dadka intii badnaa gaajay u geeriyoodeen iyo xanuunnadii markii dhaqdhaqaaqa magaalada uu yaraaday bay waxay bilaabeen qoladii ciidankii dul fadhiyana inay manjaniqyada ku garaacaan oo ay dumiyaan suurkii ama qalcadihii ku wareegsanaa magaalada 18 bilood kadib sanad iyo 6 bilood kadib
ayay magaalada gudaheedii soo galeen. taarikhyahanada qaarkood waxay yidhahdaan dad nool magaaladaba waxaa loogu yimi 70 qof, intii kale xanuun iyo gaaja u dhimatay. qoladan gaaleedna waa iska dul fadhida un maadaama niman dagaalyahano markii hore dagaal u iclaansado in badan la dagaalamayay ay ku jireen, kumay dhiiraninayana inay galaan. magaalada dadkii ku jiroo dhammi waa madheen. taarikhyahanada qaarkood baa waxay odhanayaan 70 qof baa nolol loogu tegey oo uu ka mid yahay alkaamil alayuubiy, alkaamil moxamed alayuubi uu ka mid yahay, ayay nololba isaga ku soo qabteen. markay nolol ku soo qabteenna waxay go'aansadeen in loo diro hoolako. hoolaka loo soo diray markaa. hoolaka oo xalab isku weer ka haya ayaa waxaa loo keenay iyadoo la sido ninkii la odhan jiray alkaamil moxamed alayuubi. waxay dhahdaan markiiba may dilin ee magaaladii uunbay baabi'iyeen, guryihii way gubeen, derbiyadeedii waa dumiyeen, wixii qalcad iyo suur ku yaallay waa la dumiyey. ninkanna maxbuusnimaa loo hayaa. maxaa ay u dili waayeen markiiba? waxay leeyihiin lacalla inuu rabay ayuubiyiinta kale inay isdhiibaan oo kan ximis jooga iyo kan dimashq ka dagaalamay iyo xalab towraan shaahan jooga iyo nimankan meelahan ku jiro dhan ninkan waa isku family. marka maadaama odayadoodii ka mida gacanta lagu hayo, inuu noqdo kow cunsur mufaawadaat, wax haddii iyagaba wax laga qabto ay ku mufaawadoon karaan. waa marka labaade inuu sugo inta ay wax iska beddelayaan. warkii ahaa markuu yimi in magaaladii miyafirqiin la qabtay, ninkii odayga ahaana la soo qabtay, magaaladii la odhan jiray xalab way niyad jabtay. waxaanay u arkeen iyaguna inaan wakhti u hadhin. waxaanay go'aansadeen meelaha qaarkood inay albaabada isaga furaan oo la soo daayo. laakiin tooraan shaah oo zaciimkoodii isagu wuu diiday, fikraddaa wuu aqbali waayey. markuu arkay in wixiiba jabeen oo aan wax weyni jirin, ayaa waxaa la bilaabay ninkan odayga ee la qabtay in tacdiib loo bilaabo. hoolaka wuxuu amray in la xidhxidho. marka la xidhxidho kadibna isagoo nool hilibkiisa in la googooyo, kadibna in isaga la cunsiiyo. isagoo nool baa la xidhay, salad baa kolba la soo jaraa, afkaa laga geliya, isagaa la cunsiiyaa. sidaa loogu waday buu ku dhintay. alkaamil moxamed alayuubi isagoo xidhxidhan oo hilibkiisa la cunsiinayo ayuu raximahullah isagu geeriyooday. laakiin kuwo badan oo aynu ka warrami doonnaa iyagu waxay geeriyoodeen iyagoo dulliya. annaasir yuusuf xagga dambaan ku tilmaami doonaa siduu ku geeriyooday isagu. laakiin ninkani isagoo shahiidoo dagaalamaya oo sharaftiisa iyo diintiisa iyo dadkiisaba difaaciyuu geeriyooday. ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahy walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili اllahi amwaata bal axyaaءun cinda rabbihim yurzaquun farixiina bima aataahum allahu min fadlih wayastabshiruuna biاladiina lam yalxaquu bihim min khalfihim alaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun yastabshiruuna binicmati min allahi wafadl waana allaha laa yudiicu ajra almu'miniin. geerida waa loo simayo waa la wada geeriyoonayaa. laakiin waxaa kala gedisan qof soo jeedo dantiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa iyo ummaddiisa difaacaya inuu geeriyoodo, iyo qof daliilah oo isdhiibay oo dulloobay oo haddana dullinimada ku dhintay aad bay u kala fogyihin. waxa aan wax badan sii joogin markaa inay isdhiibto xalb oo albaabada ay furaan, laakiin uu diido amiirkii ka talinayay oo ah
towraan shaah sheekh xuseenna hadduu halkan soo fadhiistay male wakhtigu uu dhan yahay halkaas ay inoogu joogaysaa wasalaamu calaykum waraxmat